waa maxay iska warhayntu sideed iskaga warhayn kartaa si ma is leedahay horumarka kalsoonida iyo deganaanshiya la'aantu way isku xidhan yihiin su'aalaha iyo su'aalo dhowraba waxaynu kaga dhex jawaabi doonaa xalqadeennan Meehal Podcast martida maantana waa Nasriin Saalax soo dhawaad Nasriin. Thank you so much walaal aad baad u mahadsan tahay bilaalow waan ku salaamayaa adiga iyo asxaabtaada ana rajaynayaa in meel walba oo codkani gaari doono ay ku nabdoon yihiin ku caafimaad qabaan ku faraxsan yihiin oo ay ku nabdoon yihiin hagaag aad baan ku soo dhaweynayaa haddaba inteenaan barnaamijka u guda gelin bal aynu baranno waa tuma Nasriin. Okay aan isbara dadkaaga magacaygu waa Nasriin Saalax waxaan aad u danayaa arrimaha ku saabsan wacyiga ruuxda cilmiyada la xiriirka bulshada qaangaarnimada maskaxda noolaanshiyaha waxyaalaha ku saabsan ibni'aadantinimada jacaylka deganaanshiyaha iyo habugu noolaanshiyaha nolol xasiloon barasho wanaagsan. aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee isku kaya qaaxday haddii aynu guda galno barnaamijkeena waa maxay iska warhayntu iska warhayntu horta waa inaad ogaal yeelan kartid aad naftaada ku qeexi karto naftaada ku fahmi karto maalmaha aanad dabiiciga ahayn aad dadka waxyeeladaada kaga durki karto aad si dabacsan la adiga laftigaagu naftaada ugu dhaqan karto waxaan oran karaa waa marka aad soo fiirsato oo aad bilowdid inaad maalinba qayb heshid adiga naftaada ah waa marka aad bilowdid inaad ka warhaysid dabiicadkaaga xunxun iyo kuwa kasan ee wanaagsan dabadeedna aad u diyaar garowdid inaad saxdo kuwa kalena tacab sii geliso si aad u waariso waa cilmi ballaaran oo aan dhammaad lahayn sana aaminsanahay iska warhayntu oo maalinba inta naftu kugu jirto haddaad iska warhaynta bilowdid qayb kaa lunsan aad heli doontid baran doontid oo aad hagaagsan doontid hagaag aad iyo aad hadda waxaa tiri waa cilmi bilow leh balse aan dhammaad lahayn exactly deena maaha anigu iska warhaynta waxaan bilaabay laga yaabaa iminka muddo 5 sano ka hor maalin kasto iyo waa kasto bariyana wax aanan nafteeda ka ogeyn baa bartay ka baran exactly waxaan asxaabta badanaa ku iraahdaa war iska warhaya laakiin xaseen iskaga warhayn maalinta saa ogaatid bilowdid bilow bay leedahay balse dhammaan exactly la maalinta min al-mahdi ila al-lahdi way oran jirtay maalinba qayb ka luntay oo aanad isku ogeyn inaad adigu leedahay ayaad heli doontaa 4 sano ka hor baan anigu gartay 4 sano ka hor baan bilaabay inaan iska warhayo 2019 bay ahayd xilligii aan bilaabay iska warhayntu faa'iidada ay leedahay ilaa iyo maanta 2023 lagu jirana maalinba dabiicad aanan lahayn oo ama salbi ha ahaato ama ha ahaato iijaabi ama wax wanaagsan ama mid togan ha noqoto ama mid taban ha noqoto waxbaan helaa aanan isku ogeyn dabeetana waxaasaan anigu isku daya markaa ma inaan wax ka bedelo ama dabeetana hadday wanaag leedahay oo dhaqan iyo dabiicad fiican ay tahayna aan wax wanaagsan ku sii darsado oo aan sii hagaajiyo iska warhayntu waa cilmi aad u cajiiba oo barbilow leh laakiin aan bardhamaad lahayn aad iyo aad hagaag hadba Nasriinay ma isleedahay adigu waad iska warhaysaa ama waad iska warqabtaa se faa'iidadiisa goormaad ogaatay alxamdulillah waxaan dareemayaa inaan aad ugu fiirsado heer xataa dabiicadka cusub ee ku soo kordha aniga naftayda aan ogaado kuwii hore aniga hagardaameeyna ama dhibaateeyna aan isaga saaro taalahan waxaan xasuustaa sidayda caadiga ah inaan qof casabiyada ah aan ahay ama qof carab badan aan ahay khusuusan guriga iyo ehelka dhexdooda laakiin markaan ogaaday dhibaatooyinka ay leedahay carada qaylada badan iyo deganaanshiya la'aantu waxaan bartay qaababka loo xadeyn karo oo tababar baan galay 6 bilood ah 6 months tababarkaas wuxuu iga caawiyay inaan caradii iyo xanaaqeygii badnaa aan kontrolo dabeetana aan u bedelo inaan noqdo qof qabow oo degan oo ma aragtay si suhuule ah ama si degdegsiimo ah aan ku caroonin faa'iidadeedana taasaaba cadayno aho markan iska warqabay ee aan is ogaaday inaan casabiyadahay ee aan cara badanahay baan markiiba xal raadiyay saanan aniguna naftayda u dhibin dadka igu xeerana markaa caradayda aanan dhibaatooyin u gaarsiinin inaan deganaanshiyo u bedelo xagga casabnimada marka xilligaasaan ogaaday faa'iidadeeda aad iyo aad halkaa waxaad tilmaamtay deganaanshiyo haddaba waa maxay deganaanshiyahu iyo deganaanshiya la'aantu si ay dadku u fahmaan okay aan ku horeeyo bal deganaanshiya horto deganaanshiyahu waxaa la dareen oo uu qofku gaaro ama ruuxu uu gaaro kolka uu qoryo qaato oo uu ku dadaalo in uu gaaro dad badan baa halka qalad ka aamina markay arkaan qof aad u degan oo mooda in deganaanshiyo ay tahay dabiicad loo dhasho
dabeecad loo dhasho maaha waa si xaalad la gaaro aan ku xijiyo deganaansho la'aanta deganaansho la'aanta horta waa wax qof waliba uu dareemo oo ibni aadamku qisa ahaan kala duwanaado laakiin dareen ahaan isku mid ayaynu nahay astaamaha ay leedahayna waxa weeyaan waa in nolosha macaankeeda laga yara qabto waa iyadoo waxaad haysataa ay qiimo kula yeelan weydo waa iyadoo taladaadu faraha ka baxdo oo aad xal weyday taalkaaga ah waa iyada oo hawlo kaa culus guudkaaga saarmaan dabadeedna marar aad macal ducad xal ku weydo waa xaalad iyo xilli taagtaadu runta kuu sheegto oo maskaxdaaduna xalka garowsan weydo dabadeed aad gana adiido oo ay nolosha ku dhadhami weydo waa wax qof waliba haleela deganaansho la'aantu laakiin aan aaminsanahay in ruux waliba uu u baahi qabo inuu dareemo qasabna ay tahay inuu dareemo si uu khibrad experience iyo uu uga helo cilmi oo ugu yaraan uu dadka kale wax uga kordhin karo xanuunka uu maray deganaansho la'aanta ah exactly marka qofka waxaanu oran karaynaa waaba loo baahan yahay exactly maya sida nimcooyinka ila ku siiya aad ogaato mararka qaarkood waad u baahan tahay in laga qaado waayo maba dareemaysid ba haddii nimcada aad iska haysatid yani waabad ku dhalatay waxaad ku dhalatay nolol reynreyn leh so noloshii reynreynta lahayd sid ugu jirtay baad ku dhimatay macnaha ay leedahay marka nolosha waahay xataa even qofku mana qiimeynayo sidoo kale noloshii macnaheegii baa meesha ka baxaysa bas aakhiro maxaa loo tegayaaba mar haddii adduunyadan qofku siduu u doono ugu raaxaysanayo so iyada laftigeega xanuunka aynu dareeno ama deganaanshiyo la'aantaas aynu dareeno warwarkan iyo walbahaarka nagu furmay waxaynu odhan karnaaba waxa weeyaan wax loo baahayo si aad baloo ogaato waxyaalahaad hayso sonkorta milix markaad dhadhamisid ee aad in badan afka ku shubatid qaraarkeeda haddaad degdeg uga luqluqatid oo haddana yaroo sonkor dhadhamisid macaankeeda markaasaad garanaysaa laakiin haddaad sonkor uun cuntid ma garanaysid xanuunka iyo dhibta ay milixda badan ay leedahay that's why waa in nolosha laysku balance karay waa in xanuunka aynu dareeno si farxadda iyo deganaanshiyaha iyo caafimaadka iyo dadkan aynu la joogno iyo maad aragtay fudaydkan aynu guud ahaan iyo dul ahaanba dareemayno aynu u qiimayno waa inaynu beyn dareeno waa inaan ruux ahaan xanuunsan karno dibad ahaan aynu xanuunsan karno xanuunkii baa laba kale oo xanuunada qaar sidaan soo sheegay waynu isku waayi karnaa halkan qaar kale aynu isku heli karno marka waxaa mar walba important ah in ugu yaraan waxa aynu experience aynu ka qaadano xanuunka aynu dareemayno bayn iyo balashar wax la yidhaahdaa jira like alam dareem si aad u gaadho markaasi macaan ama bilaa alam aad u gaadho masalan iminka waa maalin jimcaha waxbaynu duubaynaa waa 8 subaxnimo baynu isballansanay layidhi ha layskugu yimaado magaalada Hargeysa kornaheega like xanuunkaas oo dhan waxaanu u dareemaynaa si aynu u gaadhsiino ummadii wax faa'iido leh taasna in baagay nagaga soo noqda ama feedback ay nagaga soo noqda oo ina dareensiiyay inaan wax qabanay taasna inaka ku degaynaba so xanuun la'aanta maanta kalahitaanka ila maanta waxa ay maalin loo wada hurdo like tusaalada taas ugu filan wax kasta oo qabanayso oo isleedahay horumarku gaar xanuun baa ka horeeya challenge la'aan isbedel ma imaan dan markaas aad gaaraysaa wanaagii aad iyo aad aynu isku sii wadana barnaamijkeena ee masleedahay horumarka kalsoonida iyo deganaanshiyo la'aantu way isku xidhan yihiin tusaale ahaan qofku horumar ma samayn karaa kii oo qalbigiisu jaban yahay ama niyadiisu jaban tahay exactly marmarna maya laba sibay noo saameeyaan horta mushkiladaha aynu la kulannaa mushkiladaha qaar waynu isku helnaa halka mushkiladaha qaarna aynu isku weyno mushkiladaha qaar waynu isku helnaa oo hibooyinkeenna aynu ku helnaa ilaahay baynu ugu dhowaanaa cibaadooyinkeenna ku saxma oo xanuunka aynu dareemayno faa'iida ayaynu ka helnaa dabadeedna waxbay inaga dhigaan aynaan ahayn tusaale ahaan dadka wax tola dadka wax qora gabya wax sawira ama hibo kala lihi waxay sameeyaan waxaanay samayn karin kolka ay fudeed ka dareemayaan oo qofka gabayaaga ahi gabayga uu dareenka ku qoro uu ka xikmad badan yahay midka uu nabad ku jirkiisa ku qoro halka mushkiladaha qaarna aynu isku weyno oo hibadeena yar ayay nagaga luntaa kalsoonida ay nagaga luntaa quruxdeena ku luntaa dadxgelkeena ku luma fariidnimadeena ku luntaa cibaadooyinkeena awood weynaa waana khatar ruuxu marmar inuu isdilo uu ku fakaro marka labada saasay inoo kala saameeyaano mushkilada qaarna waan isku helnaa oo waxa weeyaan hibadeeni baba laga yaabaa inaan meel sare wax ku gaarsiino oo sida qofka gabayaaga ahi uu gabaygiisii dadka kale qalbiyadooda uu uga dhex hadli karayo ayuu meel fiican ku gaaraa halka mushkiladaha kalena aynu isku weyno intii yaraydeen haysanay ee qurux ahayd ee hiba ahayd
ee kalsooni ahayd ee daddhexgal ahayd ay intabay nagaga lunto markaas saas baan ayaan u arkaano marka مثلا waxaan oran karnaaba mushkiladaha mararka qaarkood ku hayso isticmaal si aad ku ogaato hibooyinkaaga iyo waxyaalahaaga مثلا meelaha fadhiisana haddii mushkilad ku qabatay hala ooyine laakiin isticmaal mushkilada laftigeega marka sidaad is oran kartaa qofku imika مثلا haddii uu mushkilad haysato mushkilada uu isticmaali karaa oo waxa ka soo dhex bixi kara hibo uu leeyahay ama hibo uu leeyahay kaga dhex ogaan karaa okay salahan 2022 wuxuu kamid ahaa sanadihii ugu adkaayay aniga soo maray waliba dhowr bilood oo kamid ah waxaan xasuustaa inaan qoray 400 page oo qoraal ah oo imika fudaydkan aan dareemay aan ku qori karin oo sometimes markaan dib ugu noqdo qoraaladaas xikmadda ku jirta aan yiraahdo yaa rab anu xikmadan ma lihi xikmadaada adigu leedahay weeyaan heer ay dad badanna ay yiraahdaan ba qoraaladaadan qalbigayga taabanayaan laana waxa laga yaabaa mushkiladda aan ka soo gudbay ee aan waxa ka qoray inay dad badan ay maadartay haysato marka ugu yaraan mushkiladdu markay ku haysato hala fadhiisanina ee laakiin isku day inaad wax ka dhalisid inkastoo ay tahay marmarka qaar wax Ilaahay ku waafajinayo sidee qofku fudaydka ku heli karaa ama way isku caawin karaa baynu oran karnaa marka ay wax ka tan badan ku yimaadaan okay waxyaalaha qasab baa jira oo laga maarmaan ah inuu qofku sameeyo salahan waxyaalaha ku caawin kara ama aad fudayd ka heli kartid ama aad farxad ku dareemi kartid waxa ka koowa cibaadaadka oo waxyaalaha ugu muhiimsan ah ee ruuxdu u baahan tahay waana inaad waqtiyada adag rabbiga dooratid inaad isku xidhid oo markaad cibaadaysatid dareen deganaanshiya baa jira oo aad cibba umuurtaada dabiri doonta ah oo aad dareemi doontid oo markastoo ay dhibaato ka haysta dad istikhaaro tukatid ama dad salaad tukatid salaad khushuuc laba tukanaysaa haddaad khusuusan ma aragtay aan dib ugu noqono mushkiladii la isku helayay ahayd in qofku xagga alla ka cabsiga iyo cibaadooyinka uu cararo marka waxa number 1 ah in cibaadooyinka xaggooda aad u carartido aad Ilaahay aad isugu xidhid talabaad waxaan oran karaa isku fiirsa gudahaaga oo waxa tiraahdaa maxay haysta maxaan tabayaa si aad fudaydka u raadisid waa inaad adigu wax baadhid aqliga iyo qalbiga maxay leeyihiin qorbal mushkilada ku haysta oo problemka horta aad dareemisid find out garee inaad xogaato khasaaro maaha salahan dadka qaar ba mushkiladaha ka carara marka dadka qaar wareysatid dadku tiraahdo maxaa hebel ku dhacay maxaa bariya kaasiya qofnani wallahi waxay haysta laakiin ma doonayna wajaho okay wadana doonayna inaad wajahdid sidee bad xalka ku heli kartaa wallahi ma doonayna inaan isku furfuro baabkaas inaan ka hadlo ma jecli markasta mushkiladda waajahdid oo aad problemka isku daydid inaad find out garaysid oo aad problemkii heshid waxa fududaanaysa ugu yaraan inaad solutionkii iyo xalkii heshid marka inaad horta bal problemka find out garaysid khasaaro maaha ugu yaraan isku day inaad u fiirsatid gudahaaga ta saddexaad aad u baahan tahay sidaad fudayd u dareentid ama aad isku caawisid waxa weeye raaticid open minded ah oo maskax furan oo ayaamaha adag aad ku leexi karto oo talada weydiisan kartid raxmad leh oo nuglaashiyahaaga qaadi kara oo ma aragtay mashaacirtaada iyo dareenka aad dareemaysid aad dibadda ugu soo saari kartid isagoo waliba kugula yaabinin aad ku ag ooyi kartid aad ku ag ilmeyn kartid oo waxa weeye tissue intuu ku siiyo aan kugu charge gareyn doonin marka dambe ee ma aragtay hawsha ka baxdo iyadana waa laga maarmaan haddii marka uu yahay wuxuu wax hore oo tagta ah oo aad fahamsan tahay waxaad u baahan tahay dhowr shay iyadana in aad samaysid salahan hadduu wuxuu baast yahay ama maadi yahay ama tagta uu yahay oo in badan aad soo daba jiitanayseen waxaad u baahan tahay inaad aqbashid in waxani dhacay oo wuxuu hadduu kugu dhacay waxba kama bedeli kartid waxna kuma dari kartid already uu dhacay waxaad u baahan tahay inaad aqbashid oo waxan kugu dhacay aanad waxna ka bedeli karin waxna aanad ku dari karin talabaad u baahan tahay waxa weeye inaad cashar ka baratid oo ay wax kaaga kordhaan salahan dadka qaar baa waxyaalaha ku dhaca aan xataa qeexi karin oo aan experience ka qaadanin oo xataa garanaynin ma aragtay wixii ku dhacay wuxuu yahay inay cid kale wax ku caawiyaan daayo iyadana waxaad u baahan tahay markaa inaad cashar ka barasho aad samaysido wixii aad tiraadid okay wixii way igu dhaceen si aanay mar dambe iigu soo noqonin maxaan u baahanahay saddexaad u baahan tahay waxa weeye dad wax garad ah oo aad la wadaagtid si ay wax kugu daraan waa tii dadka open minded ka ah xagga hore aan ku soo sheegay ta afraad u baahan tahay waxa weeye inaad hore uga socotid oo wixii aan dib ku hayne mar hadduu tagtay yahay aad timaadadii ma aragtay xaggeedii u socotido aad tiraadid maxaa hadaba ii yaala tashanaad marka hadduu yahay wuxuu waxa ku haystaa wax aanad waxba ka qabin karin ama waxaanan
asxaabta kugu xiran iyo dadka maskaxda furan aanay xal ku keeni karin inaad markaa raadsatid dad therapist ah oo cilmigii leh oo psychologist ah oo bartay oo dabeetana ku siin kara qaabab iyo habab ay dhigteen iyagu oo aad mushkiladda kaga bixi kartid markaad waxyaalahaas qofka u fududayn kara in uu fudayd helo ugu yaraan bal horta problemka find out garee qof open minded ah raadso allahumma musta'aan ma adragtayay haddii markaa waxaas aad xal u weydid oo aad ma adragtayay isna caawin kari weydid dadkii kula noolaana ay ku caawin kari waayaan dad iskuul day markaa inaad raadsatid cilmigii bartay oo ma adragtay dhakhaatiir ah oo therapist ah hadda dhowr arrimood baad ka dhawaajisay arrinka koowaad ee ugu horreeya wuxuu ahaa in aynu waajahno mashaakilkeena like imika dadkeenu waxay sameeyaan taa cagsigeyga way ka baxsadaan mashaakilkooda muwaajahat almushkila waa albaabka koowaad oo qofka ku horumari kara in oran karna imika waxaad arkaysaa dhib baa haysata si uu dhibtaa uga baxo laba xal buu sameynaya ayuu kaga baxsado yaa imaa inuu isku mashquuliyo social media oo iyaday noqotay maharab iyo meel escape looga baxsado realitygii waaqicii laakiin waaqaca muwaajahu u baahan yahay xalal buu u baahan yahay solution buu u baahan yahay fikir buu u baahan yahay social media inuu yacnay cagsigeegana qaar waxay sameeyaan inay meelo kale raadsadaan inay kaga baxsadaan mushkiladii inuu seexdo kale masalan hurdo badan waxaad arkaysaa maalintii oo dhan hebeluu hurdaabaa lagu odhanaya habeenkiina uu iska baxayaayo dee bixitaanka uu samaynayaana waxa weeyaan inuu asxaab iska dhex galo buuq iyo qaylo waqtigan soo luminaya laakiin ma rabo mushkiladan haysatee ah shaqo la'aanta mushkiladan haysatee aqoontaadii hoos bay u dhacday waxba ma taqaanid waxba ma baratay xirfad ma lihid bal waajah waxaan oo dhan dee oo habee oo waqti geli oo isa soo hagaaji ayuu wuxuu samaynayaa mahrab saan uga baxsan karnaa laadhuubi baa lasoo dejisanaya habeenkii oo dhan lagu ciyaaraya ama wax kaluu samaynaya like sidii waxaynu uga fikir lahayn sidii aynu uga fikir lahayn war shaygan waajaha ayaa cagsiga ka fikirnaa war shaygan see looga baxsan karaa oo waaqicii see looga baxsan karaa taasaa xuluul loo raadiyaa imika halka cagsigu sax ka ahay waana sababta problemku still waxa la yidhahdaa qofka haddii imika isku daydid inaad baxsatid oo maaragtay mushkiladii aad ka baxsatid oo yad aanad rabin inaad xalkii raadisid qolkaaga yaraa kadib markaad soo meeraysatid soo xaraabistid uu ku horreeyay qolkaaga yaraa sariirtii yarayd aad ku seexanaysay exactly su'aalaha aad weydiinaysay hadda meeshii way ku yaalaan waayo jawaabana uma raadin marka mar walba mushkiladda raadisid oo aad xalka ma adragtay mushkiladda aad find out garaysid waxa fududaanaysa inaad xalkii find out garaysid marka mar walba waad isku daydid bal mushkiladda inta qalin iyo warqad soo qaadatid qor waxaad tiraahdaa maxay haystaa halkay wax iga haystaan يا فرحتي إذا عرقل ضينايا يا مشكلة يجوها يا ما أدرك علايس كان أندريمي مسؤول كأه هدي مركا عضو المسؤول كتاعي دي حل إسكو صنايع إسفصل هدي مركا عد كلا أي ما أدرك تيجي كوجت هاي مشكلة دي بروبلم أو علايسنا السنة تقف كايس كبصر يح حد يحدود وكعقد أو صدا والصنايع طب لورت مشكلة دواجه وما عرفت ماذا حلقة وحي كصباح مركا إيك مركا ستحل جاري كرتا buuga iyo qalinka aad sheegtay waa in qof walba qaatayo waraaqada cad maanta intuu soo qaato ku qoraa mashaakilka dhana haysta u raadiya xalkeega mid kasta dul fadhiistaa week ka shaqeeya sidoo kale waxaad ka dhawaajisay arrin kale oo ahaa accepting in qofku aqbalo iminka qadar waxa la yidhaahdo inuu inaku aaminsanahay haddaynu muslimiin nahay lidaalika qadarka aynu aaminsannahay waa inaynu ku sii darna caqliyadda ah war ilaahay baa waxaan kuu qoray nafsi waqti de waxaana wax marba kugu dhacayo ahaa soo dhibtaa kugu dhacday horta aqbal soo dhaweey markaasaynu ka fikiri karnaa sidee xallin kartaa ama maxaad kaga waajibi kartaa ama maxaad u aragtaa ama halkeed uga socon kartaa laakiin markii horeba haddiinanu aaminsanaynba dhibtani haysta tusaale yaro gaaban wiilaa saaxiibnahayba waxaa haysta mushkiladaas waxay ahayd in wejigiisu finan fara badan aad uga soo bixi kareen kadib taas waxay ku sababtay kalsoonidiisa inay hoos u dhacayso inuu dee suuqii tegi karayn inuu waxyaalo fara badan samayn karin si uu waxaasoo mushkilada uga dhex baxo marka ugu horeysa waxay ahayd bal horta inuu bal aqbalo dee horta yani waxaan ilaahay baa kugu keenay waxan waa ku imtixaaman tahay mar buu imid uuna tegi doonaa siduu u imid buu kugu dhaafayaa keliya adiga kadib marka intaa aad dejisay naftaada isdejisid ayaad odhan kartaa maxaynu ku xalinaa haddaba laakiin adoonan horta aqbalinba amba soo dhaweynba amba la hadlinba haddii aad ka baxsatid ama aad
iska caabisid adunba culays sii adaa saaraya la saaraya culays aad u fardo exactly marka qofku inuu acceptingka laftigeega arrin aad u oo wixii qofkii inuu dee imkaankaas oo kale inuu aqbalo waxaan way igu dhacday laakiin waan xalkii helo waan xalkii baaro xalku waa maxay inaan maaragtay skin care sameeyo oo wajigaygii maxaa naasibaya aan baaro dabeetana bilbo aan wax ku tijaabiyo dabeetana bishii waxaasi hadduu iga sii daro wax kale aan eego dabeetana xalka saasaad ku baari karaysaa marba waxbaad isku dayaysaa inaad eegto marba albaab isku yara qaad laakiin haddaad tirahdeen gurigaan fadhiyaya ama de waxa weeye wixiina xallin maayo mushkiladiina way haysanaysaa dee adiga unbay ku caqabadaynaysaa marka waa inaad tirahdid wixii caqabad waan u waayey xataa haddii wixii dee skin carekii iyo waxyaalihii wejiga lagu hagaajinayay ay ku anfici waayeen inaad markaa tirahdid dee wax ilaahay keenay khalaas inaan la dhaqmuun bay u baahan tahay mar walba aan skinkii maarata ka ilaaliyo dhididkii oo kale kulaylkii oo kale wax kasta oo sensitive skinkayga uu ku dareemayo xasaasiyad ku kicinaya inaan marka xal u helo marka mar walba waa inaad problemka bal find out garaysid si aad xal u samaysid taasna dee markasta horta waxaynanu ilaaweyno waxaa maanta o dhan ayn kasoo hadlaynay naga caawinaya waa ilaahay arrinkii saddexaad ee tilmaamtay laftigeega wuxuu ahaa in qofku uu bal mashaakilkiisa qaar dee ciddii uu la wadaagi karayo way fiican tahay maanta ilaahay dadkan familiga kuga hareereeyaba reason iyo sabab buu kuga hareereeyay nabiguba sallallahu alayhi wasallam markii wax ku dhaco khadiijo waa kii u soo carari jiray waa kii abubakar u carari jiray waa kii dadka ku hareeraysan la wadaagi jiray waxa haysta sidaa daraaddeed adiga laftigaagu inaad dad samaysato waa wax loo baahan yahay markasta haddana aan waxaan aaminsanahay markasta waxa ka sii weyn maalinta sujuudda saa dhulka u dhigtay eed mashaakilkaaga iyo waxaaga oo dhan ba ilaahay saa ugu sii daysay waayo waxaa la yidhaahdaa dee horta wax kasta qof yani adduunka ma jiro qof wax kasta qaban karaya laakiin waxaa jira weyne wax kasta qaban karaya wax yani wax ka hor istaagsanba ma jiro kun fayakun unba odhanayaaba bas marka iyada laftigeegiiba u baahan dee inaadan waxaan ku haysto dhan cararine bal intaad isa soo aqbashid oo tidhaahdid war mushkiladda koowaad ee ku haysataaba kii ku abuuray baad ka yaacday ood ka carartay dee wamana carada can dikri fa ina lahu maciishatan danka culayskan iyo waxaan ku haystaaba waxay kaaga yimaadeen soo digana ilaahay ka cararayba xageeda socotaa ruuxaaniyaadka iyada laftigeegii iyada mashaakilkaaga mushkilad kasta xallin kartaa ma jirtay laakiin waxaa jira weyne mushkilad kasta xallin kare isaga ku sii daa dan taasaa horta xalka ugu weyn aan aad u aaminsanahay nasrinay mar dhaweyd waxaad ii sheegtay in qofku marar isaga oo nool uu dhiman karo guud ahaan astaamo noocee ah ayaad ku qiyaastay dhimashada qofka nool astaamo badan baa jirta oo qofku ku ogaan karo hadba intuu qalbigiisa iyo damirkiisu nool yahay dhimashada qofka noolna waa damiirka ruuxa oo lama sidaan u aqaano sidaan aaminsanahay waa raxmadda walaalnimada iyo dadnimada oo la weynaan weyda ruuxa xumaanta iyo wanaagga inuu isku qaso oo kala saari waayo qofku samaanta iyo waxii xun astaamaha lagu garto qofku inuu isagoo oo nool dhintay marar bal isweydii su'aalahan qof kasta oo dhageysan doona podcastkan ama codkan meel kasta baa kaa soo gaadhay waxaad isweydiisaa si aad bal u qiyaasto hadba inta aad nooshahay dhaqaaqa dhirtu qiimo ma kula leedahay oo dad badan baa jirta oo aanay dhirta dhaqaaqeeda iyo jabaqda ay samaysaa aanay qiimo lahayn waayo wax walba ilaahay macnuu u sameeyey isweydii taabashada dadku qiimo ma kula leedahay dad badan baa necab physical touchka laana inaga dadkeena inta badan waxaa aad ugu yar kalgacaylka raxmadda walaalnimada naxariista jacaylka laftigiisa wax ceebaynu aragnaa oo waxa weeye dadka walaalihii waxaad arkaysaa inaanay isdhunkan karin inaanay ishaagarayn karin ama hab aanay siin karin in aanay maaragtay gacan ahaan aanay istaaban karin oo waxa weeye walaalka dad ku yara dhawaato wuxuu leeyahay hadda maxaad leedahay maanta malacag baad iga rabtaa markaa bal isweydiin intee leeg baad ayaad taabashada dadku ay qiimo kula leedahay intee leeg baad hooyadaa hab siin kartaa aad dhunkan kartaa walaalada iyo saaxiibada intee leeg baad dhunkan kartaa waxa weeye xaaskaagu intee leeg baad maadaragtay physical touch waa wax kasta oo qofku ibnaadamku uu baahan yahay laakiin inaga waa la ceebeeyey marka bal isweydiin qiimo intee leeg bay kula leedahay jabaqda biyuhu qiimo ma kula leedahay isweydiin dadka dhibtooda ma ku damaqdaa isweydiin si in la isxumeeyo oo la ceeboobo oo dadka la dhibaato jeceshahay dad badan baa waana siday dadkeena u badan yihiin waxyaalaad ku qiyaasi karta waxaa ka mid ah isweydii dagaalada iyo balaayeenka miyaad u sacbo doontaa mise nabad baa dadka iyo naftaadaba la jeceshahay
waxyaalaha markaad isweydiisid waxaad ogaan doontaa intee in leeg baad nooshahay intee in leeg baad dhimatay isku soo duubo si aad u noolaato nololaada haddana nooshahay u fiirso intee u damiirkaaga iyo dadnimadaada shaqaynayaan sida kale intee in leeg bay garashadaada iyo garaadkaagu shaqaynayaan labadaas haddii aad dareentid inay shaqaynayaan oo dadnimadaada iyo dareenkaagu uu shaqaynayo garaadkaaga iyo garashadaaduna ay shaqaynayso it means waad nooshahay waxyaalo badanna markaasay qiimo kula yeelanayaan markaasay jabaqda biyo qiimo kula yeelanayaan markaasay dadka iyo maaragtay ibnaadintinimada qiimo kula yeelan kartaa markaasay dhirta iyo hawada markaasay dhirta iyo hawadu qiimo kula yeelan karaan waxyaalahaas isweydii saasaad ayaad ku dareemi doontaa inaad nooshahay iyo inaad bal dhimatay adoo nool aad iyo aad anugu waxaaban marka qaarkood marka dadka wareegsanaysid waxaad arkaysaa qof aad odhanayso qofkan heedhe wuu nool yahay horta mise uu dhintay waayo markaad maskaxdiisa aragto qofkii waxaa ku dhex quuxaya waxa ku jiro aad odhanaysa wacyigaabnidoo kale masalan anugu qofka waxaaban ku tilmaamaa dee qof iska nool laakiin guda ahaan aan nooleen waayo haddii aadan ruuxiya noolan guda ahaan oodan ku noolaysiinayn ruuxdaadii cibaadooyin aadan ku noolaysiinayn ruuxdaadii aqoon aadan ruuxdaadii ku noolaysiinayn kobcitaanka aad kobcinayso wacyigaaga dee waad physically unbaad nooshahay guda ahaan ku jirto waa important weeyaan qofku ugu yaraan inuu guda ahaanna isnooleeyo markaase dibad ahaanna aad qurux yeelan kartaa markaad guda ahaan isnoolaysid baad dibad ahaanna aad qurux yeelan kartaa mar walba isku day bal horto ruuxdaada inaad noolaysidoo waxa weeye cibaadaadka marka laga imaado oo iyagu number 1 ah inaad raxmadda iyo kalgacaylka iyo walaalnimada iyo maaragtay dad jacaylka iyo dhirta inaad maaragtay ku dhawaatid iyo biyaha meelo biyala inaad tagtid iyo meelo cagaar la inaad tagtid iyo barbarayna ugu dhawanaga waayo Hargeysa milihin meelo green ah laakiin bal isku day inaad soo noolaatid waayaan waxaan u aqaan wax laga yaabaa dhowrkii bilood dumar baan barbaro yara qarara wax israadayaad guud ahaan dhimanin galbadaha iyo qiimaha ay badu leedahay iyo adiga insaan ahaan xataa daciifnimadaada iyo intaad leeg tahay iyo qiimaha intuu jira iyo waxaas oo dhan baad ogaan kartaa markaad dabiiciga tagto oo dibadda baaxadeeda markaad aragtid adigu intaad ka dhex tahay ayaad arki kartaa oo marmar badan haddaad xataa kibir badan tahay aad ku kibir jabi kartid marka waa important inuu qofku xataa haddii waxyaalaha iyo waxyaalo badan oo kale jiro xataa imikaan ilowsanahay oo dadku way ku kala duwanaan karaan dad badan baa jira astaamahan soo sheegay leh laakiin still waxyaalo kale oo ay ka maqan yihiin oo iyada lafteedu ay xadaynaysa guud ahaan inay wax ka maqan yihiin marka bal dib isku soo noole haddaad dareemaysid in maaragtay waxyaalahaas aan qiimo kula lahayn guntii gunaanadkii maxaad tale aad uga tegi lahayd dadkeena dhegeysanaya maanta okay taladan dadka uga tegaya waxa weeyaan nolosha horta gebigeedu waa maalin aad farxad ciyaarayso iyo maalin aad ciid la kici kari la'dahay midna se joogto ma haban leeyahay oo yaama haddaad fududaato oo aad dareentay inay sukaa leekaatay ayaama kadib ayay waxaanad garanayn meelay ka yimaadeen ku ridan doonaan kolkaa midna garantiin waaritaan ah noolaanshiyeeda ha u qaadanin waxaan leeyahay dadka muddada ciilanaanta iyo murugada kusii yara raagow sidaa idinku dhammaan mayso xataa haddii waqtigu kugu yar dheeraado sanada wuxuunba isbedeliye dadaal oo dabacsanis kula dhaqan kan kale ee fudaydka iyo farxadda la duulduulayowna ha isku sii ilaabin oo ha ku lumin cibaadada iyo allabarigana ha ku ilaabin inay nimco tahay waxaad haysaa xasuusnow waxaan ku dari lahaa caafimaadka waa inaad qiimihiisa garatid farxadda deganaanshiyaha shaqada iyo maalka yare kusoo gala waa inaad qiimahooda garatid ehelka walaalaha asxaabtaada iyo dadka kugu xeeran waa inaad qiimahooda garatid xiriir haddaad leedahay oo saaxiibtinimadii isfahankii iyo jacaylkii aad isku heshay waa inaad qiimahooda garatid guuriyo reer haddaad yagleeshay oo ilaahay reer dhaqan ku siiyey waa inaad qiimahooda garatid keliga haddaad nooshahay oo aad nabad tahay waa inaad nabaddaa qiimaheeda garatid wax waliba inta ay xaadirka yihiin baa waqti wanaag iyo jacayl loo huraa lagu mahadnaqaa oo ilaahay loogu xamdiyaa ugu dambeyn waxaan leeyahay fursaddu inta la haya ayay qurux leedahay tagta hadday noqoto waxba lagu dari kari maayo waxna laga bedeli kari maayo aad baad u mahadsan tahay walaal bilaalo aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee iskugu hawshay diyaarinta soo jeedinta barnaamijkan maanta aad ummadda la wadaagtay ugu dambeyntii Nasriin Saalax maxaad odhan lahayd adigan ku odhan lahaa thank you
waxa weeye hawl fiican baad qabatay oo podcast wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay bulshadu aadka ugu baahi badan tahay laakiin Soomaalidu aanay weli aad u sii fahmin oo hadda un baad moodaa in dhalinyarteena Soomaaliyeed ay imika baratay wana kula talin lahaa qof kastoo hiba haysta ama dadka doonaanshiya haysta ama isla cid baad wax gaarsiin kartaa inuu samaysto si uu ma aragtay dadka uu wax ugu duubo oo uu u dhigo wax inay dadka kale wax ka faa'iidi karaan aad baa horta u mahadsan tahay inaad barnaamijkan igu soo invite garaysay wax weyn bay ii tahay waxaan rajaynayaa ugu yaraan in bal wax 2 3 hal in wuxuunba laga faa'iiday maanta oo dhan baynu u sheekeysanaynay aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inuu noqdo podcastkani mid ugu yaraan dadka ay wax uga baxeen thank you aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaantiin intana dhegeysanaysaana aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan ee waqtigiina iyo dhagihiinaba noo siisaan waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka faa'iidi doontaan barnaamijkan sidoo kale waxaan ka codsanayaa qof kasta oo na dhegeysanaya mehalkiisa iyo fikradiisa ku saabsan barnaamijkeenan inuu kaga soo dhiibto barahayada bulshada dhexdeeda xagga commentiga wixii waana wixii talo ah iyo wixii ku beerinaba aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.